kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha wargeysyada caalamku ay ka qoreen saxada kubadda cagta Europa League oo shidmay laba kooxood oo waaweyn oo Europa League caawa dhacay Barcelona iyo Atletico Madrid bal waxaan eegi doonaa kulamadii caawa iyo waxyaabaha laga yiraahday muuqaalkeena inteena bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareeysa asxaabadan ay gaadho hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadii aanu ku bilowno walla Barca waa jilixda Bayern 3-0 ah Barca walla waa jilixda oo markasta waa lagu tumanaya baleegmaka 6 kulan ee ugu dambeeyba waa la garaacaya kooxdani Barcelona 22 gool iyo waliba 4 gool ayaa kulamadii la kala dhalinaya oo Bayern kooxdani in waa u jilacday Barcelona oo taasi kulan walba 3-0 mar 8 waryahay Barcelona Europa League saas waa ku tagtay kulankan intaana ciyaarinba kulankii ka horeeyay ee ku xisaabtamay Victoria Plzen Inter 4-0 ay ku dhafatay kulankaasi ay rajadeeda caaw ku xidhnaa laakiin kulankani Bayern intaan la garaacinba Barca Europa League waa sii tagtayba kulankan Inter ciyaarisay ee 4-0 ku dhafatay runtii kulankaasi ciyaartani ka horba Barcelona Europa League waa joogtay oo taasi Barca 3-0 ayaa loo garaacay Mane ayaa daqiiqadii 10aad ba gool laga dhaliyay Barcelona Joao Martin koobistanaad 9 Beferd baa ugu tuuray Barcelona runtii kooxdani waa u jilicday Europa League sanadkii labaad oo xiriir wataasi Barcelona idin wataas Europa League ay sanadkii labaad ka ciyaaraysa Black Lionel Messi 17 sano oo kooxdani Barcelona uu ciyaarayay runtii Europa League kama ciyaarin wataasi 2 sano oo ka sii maqnaaba sida ugu dhibtoonayaan odaygoodii Messi wataasi 2 sano ka maqanyayba championka 16 may arag warma idin rooyin Messi soo cishtaan Barcelona inkastoo sanadkan Messi aad loo xirinayo Messi ka tagiyo free kick-na may dhalin Europa League-na 16 gruubyada kama bixinba sanadkii labaad oo xiriiraba Bayern baa lagu saladay sanadkii labaad oo xiriiraba wataasi Europa League ay ka ciyaaraysaa kooxdii Barcelona ahayd Europa League walla sanadkani waa shidmay Europa League champion bino noqonaya kooxa waaweyn ba sanadka isugu yimaatay Atletico Madrid idana waa Europa League betagtay Bayer Leverkusen ay 2-2 la gashay runtii Europa League kooxa waaweyn ayaa sanadkani waa la isku arki doonaa waxa macquul ah inaad aragtid horta weeriyahana waaweyn ba halka isugu yimaatay Lewandowski Cristiano Ronaldo Di Maria Vlahovic Griezmann hadigaas dhan ayaa sanadkan weeriyahana waaweyn weeriyahanadiiba Europa League ay sanadkan ka ciyaarayaan waxa macquul ah in aragno Barcelona iyo Manchester United oo isku dhacay macquul in aragno kulamadaas oo kale oo Europa League runtii kulamo waaweyn ay Europa League macquul ah in kooxaasi waaweyn ay fooda istari doonaan runtii Barca Europa League walla sanadkii labaad Messi oo 17 sano Barca ciyaarayna mu arag horta kulankan Bayern iyo Barcelona halka Barca laga soo galay waxay baasha Bellerin Bolfirsalkan labada goolba waxa uu ka caawiyay in ay offside aanay gelin goolku uu waadax u noqdo bal goolkii Mane eeg waxa ka caawiyay Bellerin oo hadiga kale offside uga bixin laakiin Bellerin ba in ka caawinayo goolkaas ana offside noqon balkan kale Joao Martin uu dhalinay Bellerin ay isagna ka caawiyay oo uu ogolaaday inaan goolkaas offside noqon oo labada jeerba labada xigtay kala dhalinay la kala sinna baashaas ayaa laga soo galay wale laakiin baldi ana kule waa daafacan caadi ahayn baashiisu waa kala goostay Barca waa ahaatay Barca runtii kooxdana waa u jilicday oo taasi sanadii ugu dambeeyba lagu tumanayo Tottenham idin rajadeedu waa si adkaanaysa Sporting ayaa iyaduna mar kale kulankoona gastay garaacday markana gool iyo gool ay la gashay Sporting Lisbon gool iyo gool lagu horeeyay oo daqiiqadii 8aad ay goolka barbaraca Tottenham keentay mahane runtii goolka waaba lagu horeeyay Napoli ayada runtii laga yaaban yahay kooxdani si loogu qaban championka sanadkani waa kooxa ugu cadcad loo saadaalinayo bal gurbiyada ay kooxoodiisa ugu soo tunteen Rangers iduna mar kale caawa 3-0 ay ku dhufatay Simeone ayaa sugna
labada gool ee hore ee kooxda Napoli u dhaliyay halka goolka kale Leo Ostigard uu daqiiqadii 80 u dhaliyay Simone waa kacsan kulamadii horena gool waa soo dhalinay runtii Napoli kooxa aad ku kacsan weeye ninkii Cristiano Ronaldo ahaa iyaad kale loo xidhnay kooxda Napoli madaxweynahoodu waa hadlay oo waxa uu yiri January baa la xidhnay Ronaldo Tikro wuxuu yiri ma socono inaanu kooxdan aanu ku soo kordhino ciyaartoy Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay January ma soo iibsan doono waayo kooxdu waa kacsan tahay ma rabish bay karayaan kooxdu waa jaan qaaday oo kaasi kulmadii ugu dambeeyay goolasho waa kuwa saasi u fardhinaya ee goolasho faraha badan dhalinaya Liverpool ayaduna runtii caawa ciyaarisay oo 3-0 ayaduna ka adkaatay Salah Darwin Núñez Elliot gool ay ka kala heshay ay runtii caawa ku basay runtii Liverpool iyaduna kulamada dambe waa soo canaantay iyaduna 16 ay sidaasi caawa gudubtay kooxdaasi Liverpool kulankan guusha ay gaadhay wataasi waxay ka gudubtay gurubyada Liverpool 16 ay iska cadirisay Liverpool waxay ciyaarisay kulankina caawa kulankeedii 150aad ee Champions League ay ciyaarto wayheeda sidoo kale Jurgen Klopp ayaa waxa uu barbariyay caawa recordka hore oo ugu yaalay tobabarii hore kooxdaas Liverpool kaasi oo 62 kulan Liverpool Champions League maamulay Klopp ayaa sugna kulankiisa 66aad ee Champions League caawa kulankii Ajax ay 3-0 ka ku dhufanayeen waxa uu ahaa kulankiisa 66aad caawina waxay ciyaareen kulankoodii 150aad kooxdaas Liverpool Club Brugge ayaa caawa 4-0 ugu dhuftay waxay gruubyada waxay ka soo taliso gruubkaniba ugu dambeyn waa la qabtay oo kooxdani Porto ayaa ku dhufatay 4-0 caawa waa ku timatay kooxdani laakiin wali kooxda Club Brugge groupka waxa iyada u cad oo waxa loo badinayaa Porto iyo waliba labadani Club Brugge ay ka baxeen iyadoo Atletico Madrid gruubyada ay laaday Barcelona Juventus iyo waliba kooxaasi waaweyn ee sanadkani Europa League oo dhadha 4-0 ay Porto ku badisay haddii aan eegno wararka suuqa Greybsa Barcelona ayaa waxa aad loo xirinayaa xadiga khadka dhexe ee kooxdaasi Wolves ayaa wada hadal ay kala jiraan baleysi saxaasi khadka dhexe ee Ruben Neves ee heshiiskaas ay wax xaqiijin lahaayeen oo ay ugu soo kabsoon lahaayeen khadka dhexe ee runtii dhibaatada ka haysta kooxdani Barcelona kooxda Bayern oo caawa ku tumatay kooxdani Barcelona ayaduna waxay ka fikiraysaa inay xagaaga dambe ay u dhaqaaqdo heshiiska xadiga khadka dhexe ee kooxdaasi Manchester City ee kay Gundogan Jarmal iyagu baa isfahmaya kooxdaas Jarmalka ayaa Gundogan aad loo xirinaya inuu Tikro macalinka kooxdaasi Manchester United Erik ten Hag ayaa waxa uu xaqiijiyay in ninkii Cristiano Ronaldo uu dib ugu soo laaban doono safka kooxdaasi Man United kulanka Europa League ay wajahayaan Sheriff waxa leeyahay kulankaasi Khamiista ay wada ciyaari doonaan ninkii Cristiano Ronaldo dib ayuu ugu soo laaban doonaa ayuu leeyahay safka koobaad oo kulmadii ugu dambeeyay oo ku maqnaa ganaax kooxeed waxaynu daawanay kulamo championkoon caadi ahayn Barca oo sidii caadi ahayd marka la xasuuqayo ayna caawa soo aragnay oo 2-0 lagu dhuftay Napoli ayaduna wacdireeda sii wadatay ayna caawa soo aragnay Liverpool ayadoo sanadkii hore laga shakiyay oo gruubyada ay ku sigan in laga badiyo oo kulankii hore ay Napoli 4-0 ku badatay ayaduna caawa xaqiijistay Inter intaanay la ciyaarin Bayern Barcelona ay mar hore gruubyada ay u dirtay Europa League Atletico Madrid caawa Europa League aadi kulmadaasi waaweyn ayna caawa soo daawanay warkeena ciyaaruhu waa naga intaas saaxiibayaal intaynu kulmi doono warkeena kale wassalaamu calaykum